aad baad u mahadsantihiin baaqaygii aad ka soo jawaabteen inaad nala soo dhaweystaan brofeserka Saleebaan Axmed Guuleed brofeserka jaamacadda Camuud ahna madaxweynaha 12 jaamacadood oo ku yaala Soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa barnaamijka inoo furi doona inoo xiriirin doona Mursal Jimcaale oo ah madaxa xafiiska Camuud Foundation ee Minneapolis isku soo dhaw Mursal بسم الله الرحمن الرحيم أنا مرسل فرح سيد محمدين الشاقي مقعي قويان waxaan rabaa inaan hadda ku soo dhaweeyo runtii si waqtiga aan uga faa'iideysano Sheekh Saad Muuse waxaan u maleynahay qof aan aqoonin meeshan waa yar yahay waa sheekha meel kasta oo loo baahdo waxaan u maleynahay waad ku aragtaan sheekha waa nin aad iyo aad u firfircoon marka Sheekh Saad soo dhawow walaalayaal ikhyaartiina sharafta leh wujuhdiina karaamaysan ee qaaliga ah ee ku abtirsanaysa Soomaali oo muslim ah oo ku nool Minnesota marka ugu horeysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inta ka bacdi waxa sharaf inoo ah anigoo magaciina ku hadlaya sida la yirina ay ku haboon tahay ay tahay likulli makaanin lahu maqaal anigoo magaciina ku hadlaya waxa kulligeen sharaf inoo ah oo Ilaahay inoo suura galiyay inuu ku shukriyeena soo dhaweynteena qaaliga ayna ku soo dhaweyno walaalkeena Saleebaan Axmed Guuleed yaani halkan anigu taariikhda ka sheegi maayo rag baa u jooga laakiin intii la ii soo kiciyay aniga walaalayaal haddaynu dad musliman nahay oo maxaan ku yiraahdaa Ilaahay naga dhigay muslim noo doortay oo qof aan muslim naga dhigay u noqon karin waxaan idinku dardaarayaa marka ugu horeysa ya alaykum bi taqwallah meel aad joogtaan ilaahay waka quraankiisa kula ya ayuha alladheena aamanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun qofka muslimka ee ilaahay karaameeyay ee uu doortay inuu siiyo waxa ugu qaalisan qof bili aadan la siiyo oo ah garashada Ilaahay fa'lam annahu la ilaha illa Allah inaan ilaah mooyaan ilaah kale jirin qofka Ilaahay garansiyo siiyay haweentu adduunyada jooga waa in yar oo tirsan hadaad ka kufridaana idin kala waay marka Allah ina fahamsiyo khayrul kalaam aqalla wadalla leeyay hadal waa ki kooban ee wax tarahe فجزاهم الله خيرا إلهي هيدي كابال مريو عمل كينا صالحة قروح ضبضن قالقة قونتا كو قطوما سمفلك كو قطوما أهل كي قرابتنا كو قطوما انحدك لحين اون اسبار لحين سوما أقونت مسبار إليه أقونت اسبار مالي اسبار أهل نمدنا اسبار مالي نهار اسمتي مركا انتاس أيان إذن كدر داريا مرلبان سور دويد ونكسن مرلبان إذن كأم هاتسن وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أم هاتسن طال الشيخ سعد أن الله نقول أنفعه أن هذا نوح وجود بين سور دوينت أن بروفيسور سليمان أن وحن أهر مرينا هنا ولا صلدقوا هوشن أردن وهذا ماشان فدية شقة أي عمود فاونديشن قبضتي أنا وربحنتي هذا بدل مسوي جود بين كرا لكن waxaan ku soo koobayaa masawirka dhabarkayga ah bal inaad fiirisaan wax qabadkeeda marka waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo presidentaha Camuud Foundation walaalkeen Maxamuud Faarax Igaal soo dhawow wax walba horta ilaahay baa mahadle inteena isku keenay maanta waa sabti waa qabowdahay meel kulul oo wanaagsan reerihiini baa la jooglaan laakiin se ilaahay baa in keenay inaad maanta noo timaadaan had iyo goor waxaan ilaahay waadna soo sharafteen ilaahayna sharafo aad iyo aad baan u mahadsantiin Minneapolis anagu hadaan nahay dadka Soomaaliyeed ee North America degan aad baan inigu mahad celinaa
waadna sharafteen oo si wanaagsan baad noo sharafteen oo maanta meel walba qolka leeyahay Soomaali baa tahay Minnesota ka timid meeye Dallas baan ka nimidnay marka waxyaalo badan oo dadka Soomaaliyeed u soo jeedeen baa jirta electionkii dhawaa aad baan ugu congratulate garaynaa Cabdi Warsame iyo dadkii badnaa ee aad soo doorateen waxaan leenahay waqtigii healing ugu gaadhay insha Allah la isku yimaado I know two different camps dadku ahayo ni sheegay insha Allah in la isku yimaado Amuud anigu markii ugu horeysay maahan nimaada Minneapolis aad iyo aad baad u mahadsantiin I think really wax kasta waan qabsan karnaa hadaan Soomaaliya hadaan nahay ku dhexdeena hadiya goor waxaan shalay doraad markaan Keith Ellison u tagnay aan ku nidhi Soomaaliya waxa lagu kharash garay $57 billion for the last 20 years 57 billion dollars 10 milyan oo Soomaaliyeedna waa nahay markaan Soomaaliya leenahay waxa weyn ka hadlanaa Somaliland Puntland Central Somalia Jubaland annagu qolo walba caalan qaadato way respect moogtahay marka hadii aan ma Somaliland ka timiday we support that Puntland ka timiday we support haddaad ka timiday Jubaland we support hadii dad Soomaaliyeed oo Kenya wajeero mashaariic baan ka qabanaa marka every qoladii caalan qaadataba we respect that because annagu siyaasad kuma jirno marka hadii aan mesela ma Somaliland ma Jubaland ma Puntland ilaano is because where the projects are marka hadii aan nahay dad Soomaaliyeed we really annagu Minnesota degantiin aad iyo aad baan inagu mahad celinaa anigu dhowr jeer baan ku soo noqday wax wanaagoon inaga shoogo mooyaane iyo anigu amaanta aan sheegno mooyaane aad iyo aad baad u mahadsantiin programku insha Allah wuu sii socon doonaa laba nin oo waxa la yiraahdaa guur doonaysid laba qof lama kaxayso qofka ka qurux badan iyo qofka ka hadalka wanaagsan midna lama kaxaysto marka Professor Suleyman iyo Yusuf baa maanta joogo waxaan mar labaad u mahad celinayaa Professor Suleyman labadii bilood oo dambeysay waxaan ka bilownay Dallas Houston waxaan tagnay Washington DC Ohio Columbus Ohio we went to Kentucky Boston baan tagnay marka maanta waa maalintii noogu dambeysay insha Allah uu socon doona anu kullay wala introduce gareyn doona Professor Suleyman laakiin aniga iyo Amoud Foundation waxa noo sharafa inaan markii jaamacadda la bilaabay ilaahay dadka bilaadanka naku waxaan isleeyahay ama adaa wax bartay ama adaa wax yaqaan ama adaa sidana ama sanata laakiin dadku ninka ilaahay isticmaalay isaga soo dirtay marka waxa weey hadiya goorna wuxuu aan ka bartay in laba qof dadku bilaadanku yahay qof wax dumiya iyo qof wax dhisa waxa aan maraka ahay maanta Professor Suleyman inuu yahay ninkii wax dhisay dhismahna qof Soomaaliya laakiin dhisma qof Soomaaliya oo maanta inta soo arday soo saaray oo meel walba oo Soomaaliya jooga oo wax ka qabanaya ciday doonta haatee level kasta haatee maanta wax ka qiimo badan Professor Suleyman ma jiro aad iyo aad baanan ugu mahad celinaa inaan success-keena salute gareyno way oo dadkeena innaka waxinoo qabtay I think dad badan oo siyaasiya warlords iyo niman wadaado imka soo baxay baa aad loo daba socdaa laakiin dadkii wax abuuray in nabadgeliyay isagaana sheegi doona why Amoud University ay u noqotay success I mean why u noqotay ka hadli doona laakiin on behalf of Amoud Foundation Board of Directors on behalf of Amoud Foundation donors on behalf of you anigu waxaan leenahay u duceeya annagana noo soo duceeya waxa aan wadno ama wuxuu wado hadii aan Ilaahay fasixin ma socdeen I really intaanan waxina weydiinin inay noo duceysaan in Ilaahay annagana waafajiyo toobada in ama dollar ama shilinka la noo dhiibay Ilaahay meeshii loogu talagalay in Ilaahay noo waafajiyo aan geeyno without daana ducadiinana wax kasto la siiya meel noo socon maayo waxaan maleynayaa samafalka iyo suugaantu xoogaa waa iska agdhow yihiin marka haddaan ku fiirino bal suugaantana ka warrama oo walaal xoogaa gabayar oo qeyro leh nagaliya aanu raadino waxaan rabaa inaan u yeero walaalkay Cawil Cali Luqmaan الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
ولا عدوان إلا على الظالمين فصلى الله وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا dadweynaha halka isku yimi ee rag iyo dumar bale ee maxaa la yiraahdaa waqtigooda soo horay halka maanta ka yimiday aad baan idin wada salaamayaa waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa professor Salmaan Axmed Guuleed aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa professorka waxaan ka imid magaalo San Kalo la yiraahdo 75 mayl jirta markii la igu yiri professor Salmaan baa imanaya ayaan halka ka imiday waxaan uga imiday waxaan tagay bishii afraad ee sanadkan baan waxaan tagay Boorama maxaa la yiraahdaa waxaana dhigtaa saddex aan abti u ahay iyo walaalkay halkaas aan ugu tagay professorka ismaanaan arag laakiin waan tagay jaamacadda aad iyo bay igu yiri ufayn baan ka yimi waa gobolka bari waan u malaynayaa daanan qaldanayn iska dhaaf gobolada kale ee ma aragtay dhowdhow marka gabay ayaan ka alifay gobolkan waxa la yiraahdaa Awdal maadaama reer Awdal waxaan uga dhigi doonaa ma aragtay taariikhdooda markaan soo bartay ilbaxnimada reer Awdale adalka soo jeeda ilbaxnimada reer Awdale adalka soo jeeda islaamnimada lagu dhahayo ehelu iimaana ummad soo jirayso hadana abiyo taariikh leen imaamku meeshuu degiyo umaradii diintu imaamku meeshuu degiyo umaradii diintu albaabkii islaamku ka galay aradka Soomaali waa Awdal iyo Salal anigo abaya taariikhda waa Awdal iyo Salal anigo abaya taariikhda ismiyo ugaasya abyanaan abid ildufaynin ismiyo ugaasya abyanaan abid ildufaynin iimaankii cali jawhar iyo ina ugaastoodii nabaday adkeeyaan dhammaan ehelka reer Awdal nabaday adkeeyaan dhammaan ehelka reer Awdal aqoonyahankii Soomaaliyeed iyo akaabirtii aqoonyahankii Soomaaliyeed iyo akaabirtii iftiinkii aqoontaatihiin iyo ilays nuura abaalkiina reer Awdal oo waan ogsoonahay itixaanku waagu ka dhacay aradka Soomaali itixaanku waagu ka dhacay aradka Soomaali afcas la isla tiigsado dadkii axadba meelaaday afcas la isla tiigsado dadkii axadba meelaaday aagii la fooliyo gahaydh ay ibtilo leeftay aqoontii indha laga riidayo loo arxami waayey aqoonyahanka reer Awdal iyo odayadii awsha idinka amaamuday camud waan ogsoonahay idinka albaabada u furay idilba Soomaali abaalkiina reer Awdal waan ogsoonahay ummad sharaf leh iyo meel amniya la agyimaadaye ummad sharaf leh iyo meel amniya la agyimaadaye ardaagiyo halkay dagan yihiin lagu aruraaye abaalkiina reer Awdal waan ogsoonahay aqoonyahankii Soomaaliyeed iyo akaabirtii aqoonyahankii Soomaaliyeed iyo akaabirtii iftiinkii aqoontaatihiin iyo ilays nuura asaaskii af Soomaaliga iyo ururintii buugta aqoonyahankii ina kaahiya lagu asteeyaye abaalkiina reer Awdal waan ogsoonahay ardadii ka timi jawhar iyo aaga cerigaabo ayl iyo ufayn iyo afmadow oo shixarar dheere inta uu dhaxaysa dadkii ururinaysaane abaalkiina reer Awdal waan ogsoonahay
ardadii iskoolada sara ababinaysaane abaalkiina reer awdalow waan ogsoonahaye ishaaradii abwaanku uu ku dhaho ereyga sugaanta hadduu uurfayow yahay ilaah wou aqbilayaaye aamiinta idhaha duucaan soo agaasimaye reer awdalow in xumi idinma soo eegto aafada adduunkiyo in xumi idinma soo eegto islaax iyo heshiis iyo afgarad abid ku noolaada abaaraha ilaah idinkahay omoska jilaalka dirir soo onkoda iyo daruur ibabaxdo horta diriir soo onkoda iyo daruur ibabaxdo horta dhulka oo ugbaado dhirtana u buuxo igshinkiilo iyo geela iyo adhi irmaanaado insha allahu waan imanayaa aagiborame ehelkiyo dadkiinagu salaam noqoshadaad aadid professor insha Allah waxaan raacinayaa iyaro ku saabsan maaragtay waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay bilaash looma naaxee cunaa lagu ballaadhaaye ma bislaado dherigan qoryaha loo balbalinayne barashada tacliintiyo cilmiga lagu boqolaaye buga qalin ka saryuu jahligu baaba ka dhigine bajiin iyo inaad rasuulku sallallahu alayhi wasallam ku yidhi udlubul cilma walow bi ardi siin oo markaa nacam cilmiga doona jaynahana ahaadee bajiin iyo inaad jayna iyo beri fogaadaado oo aad cilmiga baafisood barato diintaada waxadiis bukhaariga ku yaal beeni iga dheere bandhigii fircoon iyo dhex maray baaqi nebi muuse culimada qayb waxay tiraahdaa cilmiga sixirku nacam jaahilnimadu qofku aan waxba aqoon xitaa cilmiga sixirka qofku inuu barto ayaa ka haboon waayo suxaradii uu nabi fircoon keenay markay ushii arkeen ee gacantiina bidhaantay waxay garteen waxaanu inaanu ahayn sixir laakiin dhaka weyne fircoon waa garan waay jaahil buu ahaa laakiin oday fariida buu ahaa markiiba wuxuu ku dabaqay wadaniyad inuu ka dhigo إنه يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون بيد دنك الوجهدي بانديجي فرعوني ودح مري باقي نبي موسى قعنتي بدانتي يوشي هلقة سوبودي واتو كبيدة داي حقو سحر كباوي بقول المركو كان يو بيدو بحواي سحر كينا وبوري آي حقا وبيداني شهليقا فرعون بابا شي بلا مدونيني بوغا قالين كسريو شهليقو بابا كاديجيني ummadan waxbaran waa inay wada balowdaaye sida beledka Soomaalida bay belo ka qiiqdaaye budcad iyo waxay wada noqdaan bayris iyo tuugo babsan baasa duuba ku dhaca baahi iyo gaajo buga qalin ka sariyu jahligu baba ka dhigini waxa Yurub barwaaqada ka dhigo wada badhaadheeyay oo Maraykan baa warka ugu wacan barasho weeyaane badrigay degeen oo reer galbeedoy bina ka jeexdeene inaguna basteena lanahay baahi iyo gaajo buga qalinka saaryu jahligu baba ka dhigini waxaan ku soo gabagabeynayaa iyaduna faray gaaban oo ku saabsan wax bixinta iyo qofku maaragtay hadduu wax bixiyo wanaaga oo maaragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ittaqu naar walaw bi shiqri tamr rasuulku sallallahu alayhi wasallam ku yiri nacam timir gabalkeed ha ahaadee wax baxsada oo aakhiro wax u baxsada buu yiri ha bakhaylina sadaqada badi saxoolaaye waa barako oo aakhiro baa lagu badbaadaaye biyo weeyo waxay ka baqtiin belalkii naareede barashuud ilaah ku xidhayo baalalay noqono birijkii ku yil jahanaba lagaga boodaaye baydkaaga hoosiyo waxay bili caruurtaada balaayooyin kugu soo socdaa baa laga mariine bukaan socod wax badan jifay baa lagu bogsiyaaye habba khaylinina sadaqada badi saxoolaaye bolasiga jannadu rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri ala inna sil'atallahi alghaliya
alaa ina silcata allahi aljanna jannada ilahay ma la iska gelaya laa ilaha illa ma lagu gelaya qura bilaash ma aha ruuxii jannada biicsada galaaye barayskeedu waa haysaro waa buuxshirad weyne qofkii baaradhays doonayo baratan weeyaane waa xadiis bukhaariga ku yaal beeni iga dheere boolasiga jannadu waa inaad bixiso maalkaaga agoon baahan iyo ruux muslina gaaja bi'isaaye habba khaylinina sadaqada badisa xoolaaye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh hadalka dheerayn maayo waad mahadsantihiin dhammaantiin inaad halkan timaadeen shaqada Salebaan mas'uulka ka yahay socotaana waa tu aynu u wada dhannahay dhowr kalmadood inaan Salebaan ka idhaaho isaga ka hadlo dhowr kalmadood oo aan badnayn waa taariikhdiisu way dheer tahay way ballaaran tahay way gun dheer tahay laakiin in yar inaan ka soo qaabto oo taabto dabeetana Salebaan aynu u deynaa caawa hadalka inuu isagu inoo dhigdhigo oo si wanaagsan inoogu waramo anuu Salebaan generationka time now u shaqaynayay ECA in Addis Ababa Salebaan waxa weeye taariikhdiisa hore arday aad iyo aad u fariida Amuud markii uu ku jiray oo tacliintana aad ugu wanaagsan dooda aad ugu wanaagsan dadka hogaanka haye prefects baa la oran jiray bariga ya inuu ardayda uu kamid yahay haddana u yahay qof hor socda oo iyaga macallimiinta u dhaxeeya sida runta oo level maturity-ga caynkaas iyo kartida caynkaas ayuu lahaa waa kii taa dhamaystay si wanaagsan u dhamaystay aad bana loo yaqaanay deelaan Mareykan iyo dhulkan waa kii yimid jaamacada waaweyn ka soo baxay soo noqday wadankii ku soo noqday muddo fara badan wadanka aqoontiisa dadkii dhisayay ayuu kamid ahaa amba isagoo ka ahaa principal Amuud Secondary School Abdi Samato baan la hadlayay shalay oo lahaa igu salaan way macallin buu u ahaa Amuud oo ahaa oo principal ka ahaa Salebaan Amuud Secondary School xamar wasaaradii ballaadhnayd dadkii maamulayay gacanta ku hayay curriculumka iyo hor u socodka aqoonta wadanka ayuu ahaa marka taariikh badan baa ka horeysay Amuud University oo dadku inay ogaadaan Salebaan taariikhdiisu aad bay ugu horeysay Amuud University laakiin de taariikhdu waxay leedahay meelo ay noqoto high points ya oo inta kale ka dheer taariikhda socota ka dheer oo high points anu waxay la tahay Salebaan taariikhdiisu high point-ku ugu weyn inuu yahay iyadoo kuwa kaleba ay qiimo weyn leeyihiin sida looga fikiro in wadankii burburay oo dadkii ay kala daateen aan la isku mashquulin maalinta waxa taagan iyo dhibaatooyinka taagan amba gaajo ha noqoto amba nabadgelyo la'aan ha noqoto amba hawlo kale ha noqoto taa in aan la isku mashquulin wixii laga qaban karayo laga qabto laakiin laga fikiro long term waqtiga dheer iyo dadka soo socda ee dhalanaya iyo kuwa yaryar ee imka nool wax inta laga fikiro way lama soo noqon karayo rogaal celin ma noqonayso de taariikhdu hadii aan waqtiga dheer laga fikiro dadkii ka fikiray waqtiga dheer ayuu Salebaan kamid ahaa galbeedka dadka degan khaasatan ayuu kamid ahaa anaguna kamid ahay waxa marka dadkii u horkacay in la isku dayo jaamacad in la sameeyo waxaan garanayaa Allah u naxariistay Xasan Sheekh Muumin abwaankii weyna wuxuu kamid ahaa dadkii dhagaxa dhigayay iyo kamid ahaa ee ummadda ku guubaabinayay in dadaalka la keeno to dare ya in lagu dadaalo tan laabo jaamacadii sidaas dhagaxeega loo dhigay wixii ka dambeysana sida Mareykanku yiraaho it's history now waa taariikh socoto waa webi socdo weeyay marka anu dhowr goor baan jaamacadda tagay Amuud waa halkii 8 sanadood baan anigu Amuud ku jiray 4 sanadood oo intermediate schoolka iyo 4 sanadood oo secondary-ga marka Amuud anu waan isnaqaanaa oo aniga laftayga ga jirta Amuud waan tagay markii la abuurayay waan tagay sanadkii ka dambeeyay dhowr goor baan jaamacadda ka hadlay curriculum-kan wax ka inta laga hagaajin karno aan ka hagaajinay haddana dhawaana waan igi tagay wadankii jaamacadda waan soo aragnay dhalinyaradii oo aanu aad u sheekaysanay iyo professorada meesha jooga iyo Salebaan
dadka galbeedka degani urur ay leeyihiin oo la odhan jiray TLC Toll Leadership Council imika u bedelmay Toll Consultative Council TCC oo aan ahayn urur qabiil maahe waa urur civic organization in dadkii ay isdhisaan oo leadership yeeshaan oo taariikhda ay ka qayb galaan iyagoo buuxa oo isku kalsoon ururkaasi waxaanu sameynay oo anagu ka mid ahay dadka membershipka ka mid ahay waxaanu sameynay in sanad walba haddii la heli karo ma aan in la iska bixiyo haddii la heli karo dadku ay qofku u qalmo community-ga qof ka mid yahay rag iyo dumar oo la soo helo inta la soo magacaabo nominations inta la soo sameeyo laga soo saaro qof keeni kara tilmaantii xasan sheekh muumin marka waxa loo bixiyay awardka jaayizada la bixiyo xasan sheekh muumin prize for excellence qofku fieldku doonaha ku jiro diinta aad meel sare ha ka gaaro ha noqdo de qof imaam weyn oo de maxaan ku rahay la yaqaan ha noqdo qof siyaasi ha noqdo qof ha noqdo dhakhtar ha noqdo any field of endeavor abwaanada ha noqoto cidda la fanka dadka ku jira ha noqoto laakiin qof soo gaaray standard sare oo xasan sheekh muumin oo kale ku soo dhawaan kara in qofka inta nominations soo sameeyo qof laga soo dhaxsan oo marka awardka la siiyo marka sanadkii community-gu meel ay isku timaado ayaan sameynay oo price xoog la taariikhdana gasho oo meel la dhigo 2012 ayaa tii ugu horeysay la bixiyay oo committee-gu markay isla egtay aad iyo aad loo rogay oo dad badan la soo magacaabo la soo nominate gareeyay Salmaan ayaa ka soo baxay oo la isku raacay in la siiyo noqdo qofkii furayay wixii imika ka dambeeya calaamada xasan sheekh muumin biladiisii in la siiyo oo de xasan sheekh muumin qof Soomaali oo dhan waliba ka sii weyn Soomaali oo dhan boogagiisa iyo riwaayadihiisa afaf badan lagu bedelay Australia lagu akhristaan tagay xasan sheekh muumin boogagiisa Oxford University intay daabacay marka xasan hilaaciisi inuu sidaa u sii muuqdo dhan waa xuska xasan Allah u naxariisto oo inuu taariikhda galo sida si wanaagsan u galo iyo in lagu daydo xasan oo sidiisii lama gaari kareen laakiin lagu daydo oo uu noqdo de nuurka la raacay lagu daydo marka Salmaan qofkii ugu horeeyay ee jaayizada la siiyay ayuu noqday kal hore haddana waxaan ku jirnaa next round kii baan ku jirnaa nominations kii ay committee ku jirta marka waxaan Salmaan de waa nin Soomaali ku weyn meel hadda ganaate anigu community-ga aan ka imid waxa weeye dadka libaaxyada waaweyn ee aan hoos galnay ee aanu gaashaanka ka dhigano waan ku faanaa marka aniga sharaf weyn baa caawa ii tahay inaan qalkan ku soo dhaweeyo walaalkay Salmaan Axmed Guuleed mikrofoonka isaga aan u daayo Salmaan soo dhawow الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحييكم بتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا إلهي بمهدله وحنا نقوم هذا قيلنا نعمة الإيمان والإسلام نعمتها فرح بدن لا ينسيها إنه ولا أضوى ذكرا oo dadkan adduunyada maanta jooga inna way halaagmi inna way guuleysan inuu ilaahay nagu daroona baryeena laakiin ifafaalihina waa wadaleen oo iridii hore aynu ka galay waa shahaadada wax badanna waa dhiman yihiin oday Allah u naxariisto Xuseen Giire loo oran jiray ayaa wuxuu Soomaalidu diinta ma lehe waashmaan bay ka tahay video ninka waashmaankii daaradu seexday video marka uu meelaha tuug arko ayuu yar oranayaa eryanaya Soomaaliduna qolyahan inala fadhiyo kala markay aragtun badan dadka waa la gaalayn Allahu akbar oranayaa bahasha kuma dhaqmaan ilaahay naga dhigo kuwii ku dhaqma mar labaad marka kalena waxaan aad ugu mahad celinayaa qolada Amud Foundation runtii oo socdaalka nii suura gelisay inaan halkan imaado dhulkan waa joogi jiray oo dhowr jeer oo aan soo noqday un mooyee flight 18 waan ku horeeyay oo flight 1 kii yabaan abariga
وأريغو waxaan imiday exactly this year konton sano ka hor baan Maraykan imid waa 63 maanta waa 13 soo ma 2003 50 years ago ayaan arday ka imid marka dadaweyna soo dhaweyn jireen laakiin doorkan bay aad ugu fiican tahay runtii aad iyo aad baan Amud Foundation oo aan nahay strategic partners wada shaqeyno sanadna aan wada dhalanay runtii sanad baan ka horreeyay 97kii Amud la furay laakiin officially waxa la furay 98kii aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa intiina fadhida oo si sharaf leh noo soo dhaweysay professor kana the contribution anu ma imlaaqyada laakiin waxaan ahay dadka waxa guule caawl la ii sheegay inaan la isbeenayo ma ahayn anu kaliday ma lahayn waa guul wadareed dadka halkan jooga kuwa gudaha jooga kuwa meelo badan jooga from Norway to New Zealand Soomaalida iyo reer la ku jira ayaa hawlahan la isbeenayo I just happened to lead the institution waana waa waqtiga ugu badan oo baan haystay eradu maan ku hogaamiyay rag badan oo silent waxa jira soldiers halka jooga oo aan magacoogan ku hadlayay kula salaamay runtii Amud University ha joogaan jaamacadaha kale Soomaaliyeed ha jooga kuwa Soomaaliland Puntland iyo kuwa South Soomaaliya meelahay magacyada sheegtaan sidaad isugu yeedhaan baan idinku yeedhay anigu kuwa isugu idinku yeedhay maayeen runtii waxaan runtiina waa runtii oo Ahmed waan ka weynahay Cabdina macallin baan ahaa hadda magacay ma macallimiintayda way fadhida halkan oo rag fadhiya jira oo hadalaha maana wada gelin waa joogan bari Allahu naxariistay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal jaamacadda Hargeysa maalintii furayay ayaa wuxuu ka soo qaaday taariikhdii uqooyiga ee hore waxbarashada ayaa khudbad aad u fiican oo wal researcher si fiican loo soo qoray raggiiba team iska dhigay محمود أحمد علي أو كليدية يوسف حاج آدن يا محمد شرقي أو وضع السعودية يوسف علي سمتري عبد السلام حسن وأنتوا معلمين تيضان رجي وصدق دي قدام بيس أفرت قدام بيس وحقدك الله نحرسته أنت بقى علي مياك سمتر يوسف علي شيخ مدر حسين كاهن يو نكله أفرتوا معلمين تيهين مرسول يقول ضروري سلام أحمد قوليد markii dambaanu tagaali madaxweyne malaha cifrad yari baad muddo oday cawlan oo 60kii ka hadhay nimanku waa macallimiintaydii maybuuri he was very intelligent wuxuu yiri maya adu daakumaad gelin dadaal baad ku gashay inta dabo haweenka marka guushan oo dhan adinka kaliday malihi waa guul wadareed waana runtiina waan ninkan hadda gabiyay very intelligent ka ah warsame ya waliga ma ragni saaw aftahaanaho وتبع دايرو بريجي صاير ولا دبن مذهد أو صار نقطة وحن سهرتان وحي شيء هذا هذا إسكا ووقت الدمنا ولا جوجا وحاجة يجود بينه كشيء كسندور نعاوة سيجان عادها قيمة هو جانو سومالي ده وعمودي كو كتاي يكوا كلابا قيمة هيدنا هو جانو إن يربد دين علين دونا رنتي حاجة ما دين علين markii intii Amud University oo ugu horeysay jaamacadaha Soomaalida in fact Somaliland ahba jaamacadii ugu horeysay because taariikh tacliin sare ma aanan lahayn xagga waqooyiga laga ma lahayn oo tii jaamacadda Soomaalida jaamacad qulay lahayd ayay maalmaha ka hor waad ogtihiin oo intii markaa ka soo dhooftay iyo inta hadda dhawaan timidba waxaynu isu soo gaarnay waqti xun aad iyo aad u xun oo ah حاجة واحد برشلونة كهذا سياسة مي كي جامعات كتيري جامعات واقعية ودكتور مرك حسولنا درها نعضو casualty أوجه الرئية واحد برشلونة the first casualty in any civil instability و education حتى إسبتالله ده يصير شقيان ولا خاطر تقار ديريهين أو emergency إيو وحسيب وضوده لكن واحد برشلونة اللي وكر التجاه yes جامعة واحد أنطي أردت جامعة وحي مركا كتير دبده وبحين سكندري وحي كتير ولا دبده وبحين ولا إلى أي دبده وبحين وأمد قرة لقرنا يا تاريخ العصب مر قرة دتك وحبرنا أي هالكا وقبحين بناك أتوقع كنت أرك الحالي دد بدن بأمريكا أكون فكري أنا was one of them ورحدي أنتي دخلنا فعل حيد وحب برا الحيد بقى يدبد كتاجيهين
daruur madow baa halkaa ka soo taagan mustaqbalkii daruur madow ina way soo dhoofta of course waalidiintood bay soo raaceen laakiin daayirtii kale hataa annaga isku baqnoon nidhi dhaqanka nabadda ee meelaha qaarkood aad uga soo yar ifafaaloonaya xagga Soomaaliland ka mid tahay oo Puntland ka mid tahay oo meelo kale oo koonfurta ka mid tahay South Central ma soconayo sustainable ma aha haddaan dhalinyarada mushkiladooda la address garayn waayo dadkan dagaalamaya ee hadda nafta inoo keenay in habeen dhaar kolba dhinac eegin inagu ma caalamku dhinac eegaya dalkeena ku nool daadayda midhii kuma jira mid arrin kuma jiro wax yar yaro ilaahay inoogu saliday oo runtiina ah marka dib u yareegta maalmaha aad garanaysa ifafaalaha in waxa ay wax ka daran soo socdo because waxa kuwii ugu horeeyay leexday waa kuwii ay war dhalinyartii markay wax qabteen garan waayeen waa kuwii warlords ka u gacan galay tii u baadee fogaatay oo soo baxay waxaan imaga la sheegahayo runtii waxaan nidhi marka fikradan dibadda ka tahay marka qaarkood inama khariijkaan loo yimi oo yidhi dhulkii war bahashan jaamacad aynu samayno frankly jaamacad ma samaysmayso habeenkii walba waxaan ku riyoonaa 400 oo technical student dadka dugsi farsamaha laga dhigo laakiin ilaa la howlgal lama samaynayo marka ay fafaalaha horta jaamacaduhu inay muhiim yihiin oo aan la'aantood la socon karno ummadaasi ma saxmi lahayd bariyaha saa ku daliila waxaan joogay gabadh baan xasuusnahay bari waxay ku hadashay adisaba joognay dhowr sano ayaan joogay oo xogay consultant aanu ahaa qoladan United Nations Economic Commission for Africa yaanu ahaa mar consultant waad garanaysaa 1990 waxa la qabtay shirkii Shiina lagu qabtay United Nations Decade for Women la qabtay ayaa 6 wadan baa waxa la yiri hal laga soo qoro country papers dumarka haweenka kii Soomaaliya ayaa waxa joogtay marka ECA ka shaqeyn jirtay United Nations Economic Commission for Africa wasiir khaarijiye hadda iyo deputy prime minister Soomaaliya isla position faajaadan baa joogto qaybta dumarka iyaduna ka shaqeynaysa naag Tanzania oo madax ayado way warqadii baa leeyahay warqadaada lagu xil saaray soo qor country paperki way saa uma dhib badnayno dadkii markaa rabnay inay interview la qaadana dumarka waa wixii koray intii kor u kacday iyo jagooyinka hayeen iyo tacliinta habluhu say ahaayeen iyo dalka in badan baan ka warhay laakiin badankoodu ba Nairobi iyo Addis Ababa markaa loo soo qaxay labadii intii way soo maro xoogay steerbeyan soo sameeyay hudheer anagoo fadhiyaan Rice Hotel ayaa sabtiyada waxa dhalinyarta Soomaaliyeed iska caweysi jirto baan yar baa meesha ka tumi jiray anagoo halkii reception-kii hoosta fadhiyaan lobby-gii ayaa habla yaroo iska dee sabtiyada socdo dhar yaroo gaagaabaysta meesha soo maray laba odayoo ulana sita gadcilaan oo weyn la habluhu yiraahdeer way fiican tahay haddii caweyska waan maqlay laakiin dhaqankii Soomaaliyeed iyo xushmadii ilaaliyo oo gabadh kuwaas ka mid ah intii odaygii sidaa u eegtay ayay ku tiri marwaan ha gurigayga joogta idinka iga soo saaray oo artillery ka soo saaray rag hadaati you have no right to advise me here xaq bay igu malid halka inaad uga taliso ila gurigayga marwaan ku ahaa runtii odaygii isagoo absolute garkii xoqanaya wuxuu ku hadla garan la ilaa waa laga gar helay ayuu halkii ka dhaqaaqay statement-kii waan ku qoray warqadii page laakiin waxa ka ay guddiday markii akhriyay ma tusaari bal statement-ka ay waan yar tilmaamay way weyday frankly yani duruufaha markaa jira dalka ee daayarta haystay waa kaas oo ay runtii ahayd bilowga jaamacadda Amuud it has changed history altogether ma aha kalideed laakiin bilowgii bay ahayd jaamacadii kalena runtii taasay ka daba qaateen waxa duruufta caynkaas ayaa dhulka markaa ka jirtay waxaan xasuusnahay waxa jira raalli ahaado oo adaan xogo yar dheereeyo social change theories of social change dhowr baa jira laga soo shadaal qaado waxa professor ka maqli jiray yaraantaydii markaan jaamacadda Mareykanka ka jiray dadku taranka bani aadamku waa laba mid waa ka biological jinsiga ilaaha uu yahay ka fiirin jiray wala waalid ilaahay naga abuuray mid kale waa biological reproduction kan la yiraahdo mid kalena waa taranka dhaqanka ama cultural reproduction مثلا ما أنت هداني لهاي دي أدية السرية أقول لفن 500 سنة كبعد إنتنا المدينة كمان نقولي أنت هذا كسوة تلتنا لكن أمة صومالية دوي تشري أمة إسلامية نوي تشري أمة كلا مريكان نوي تشري يو ودنا ذا يوروبي أنت نوي تشري
hase yeeshee dadka warkaa jooga 500 ka bacdi waxa ay ku dhaqmi doonaani waa wax inagu aan dhiibnay waa transmission aynu gudbinay oo cultural transmission waxa la isu gudbiyaa diinta la isu gudbiyaa aqoonta dadku wuxuu rumaysan yahay waa elements of civilization ilbaxnimooyinka waxay leeyihiin afafka kamida technology-ga kamida qaabka la isku maamulaa kamida marka dhaqanada qaarkoodna way guraan ilbaxnimooyinka qaarkood way guraan qaarna way sii socdaan وهذا واحد ركيسة مثلاً إنجليز كل حين ترى جزيرة ديرو أن معناها هاينو مالها توق بوبضنا يكون بدها تشوجاي موقته وحوجاي واج رجد هاي وين الدنيا كعايزين تري ما أنت نعرف كوجي عالم كله بخو هلا مركا تساوي اكتاد كثير جا cultural reproduction وحوجوين أتصلي هاي شقة بالشد وحوي وحبرشوا العيادة وحفدنايس هذا هو education not schooling وكلا تشاد لما وكلا بلارين schooling is education schooling was between the four walls however education waxay noqon kartaa wax walba masaajidka meediyaha mabarsiyada iskuulada aynu leenahay marka haddaad eegto marka ilbaxnimooyinka guraya marka sidaa u eegay waxaan isiri I probably thinking kan Soomaalidu ka mid noqon doono haddii aan ilaahay inoo gargaarin وهدي عن ترى كنا هنا نجينا واحد ما أنت أنجد بيننا جنريشننا رصاص صعدة أنا وسفي عن وجاري جامعة كواسة كم دهاين وجران كرتايو عمودي أنا بس تمركي الفري ما نبى وحى نوصل درس إلا بإيميليو إنترنت يمدنا مترين أفر بقول فاكس بقول يقول لنا نوصل درس سوالي ده دور ونكسن سيقول حسقبتان شيء dagaalun way xaqile kama soo socon ay dhahdeen waxaad ka furtay halka marka camud laga sheegay mardhaba mid qolaan jawaabno nidii aanu niyo bravo ninka jawaabta noo soo qoran ha waa dhab weeyaan marka horta waan ku barbareynaa annaga laftayadu waxa la yiraahdaa laba jiro jaamacadaha hadda Soomaalidu samaysato calool adeeg baa lagu sameeyo calool adeeg waa markaad waxoogay haysato inta kana aad leedahay tawakkal ala Allah taamulid in adeeg baa ku jira in adeeg bay yarahay runtii لا على ولدك وحوجي ما ضيسته على ولدك وحبات ترى أظن وحبها يسمر كاترة جامعات بان بلابيا تسوير إن هذاك وصل عسكرته يرالي هذا عسكري هذا اللي تشوفه عسكرته تشيله يا ودري وحوجي يروير إن هذاك تاسع هدرتي واحد حسوسنا هاي مركي أنا ما أنت عن سنين إن جامعات الفري ما يركبك برخة مربوها يا وحنا السي كويلا تنافو أريا أحكي لك بدل ما نحس مجال إنه حوير باريس حبلت إلا صباح نوير نوضن كيور دبا نوير ناري جامعات بفرينا هرجيسان تجيو خالد بقى قيبين إنك أنت هبشي اللي لا بقى تجيو وهو هذا المحاد فريس مثلا جامعات بكاركوا محاد مثلا جامعات بانوسين فريه نون الدعية نورك على أدي هاي دي جرسي مركز سؤال كيف فريس مثلا بورا ما كفرينا عمود ما كفرينا يو مركز برعنا وحير ترى مركا يروي يا أسوق جورا هاي وحوجة دولا ليسكير هايسيستي وروح الحاج النجور متباع ونسعودي ودول بعد ضد بعد دول يسكوا هايستي مجال دي وصير بن لكن اللي كانوا ذينا ما نروح ده بشيرة دانا كل بقى عدي واحد شقيسان يسان الصناعي خرج معها يستيروا صناعي كويلا تنافوا عليه وبكي للنجس يبايك يو حوجة بريسو بورا ما كهلاي أيانو أنت أسوقنا قفكوا عسومينا إنا بورقات قرايو $2,000 سي أو حاجة يدك كير كفاية تاسو $2,000 ما إلى ما أنت وين نصعتها أو نجمع بقيمة in fact جامعات الصومالية اللي فربا وكتشرة جامعات سنة حسن النقطة جامعات والبا أوسيا أنتي مركا ارتساس الشيء كذا كوب بالعبنتي تبعتو سنة بدنا ولا سنة في عنا ولا سجد إذا جامعات دي كوحتي جامعات مقصية هاي thank you جامعات هرجيسا كوحتي جامعات الصومالية مركا ساوس هورت عرنتي أكوب بالعبنتي إلى إما كاي قارين لما بترين كرانو ملانية مربا وحلا هذا ور مقصصة بقى هرجيسا إلى دورية توم بقى أول والله بقى مالك الله واتشران والقبيلة إلى حاجة واتحين إلى بيدمنا واتشران ورما يبهلا ذي السين نقدر واحد نقدر ده يسكولي ده لمن ترجع بين نقدر أنا بحقول ترى ورسكت ده إسرائيل سيدا كبده إسرائيل بعد الدولة أنت دجالكم مشغول الهاي أنا ألقى هيساعد تعالين هلا مو مشغول إسكت ده in fact تيبا مركا أنو هدا كتير جامعة دي ساسو بتين وهدا وحلينا هاي
dhowr iyo toban jaamacad 12 meelaha 9 bahayna 3 hadda lagu daray forum la yiraahdo Somali Research and Educational Network ayaan leenahay ana gudoomiyaa sababta ku timidna waa very simple ana idin sheegay shisheeyaha marka la baayactamayo Nairobi waan tagi jiray European Union kan waxoogaa xudxudan jiray dhaqaalaha aniga marka amuud baa ugu horeysay waxoogaa bay noo fangareeyeen markaas waxoogaa isir warda amuud intii la iibin karay waa diibisay tolkaana u yeer kolka oo inta kale la iibiyo waxa uu raadi iyagana nimankii baan la yiri war iyaguna ay soo bari jaamacadaha oo kalidiinun ma aha waa ku daray wixii kala lagu daray مثلا jaamacadda Hargeysa jaamacadda Gollis labada Hargeysa yihiin jaamacadda Burco jaamacadda Puntland State University East Africa Banaadir University Simad University iyo Muqdisho haddana waxa ku kordhay Nugaal oo la saanooda iyo City University oo iyada Muqdisho marka sababta keentayna markii lacagtii horeysay European Union ka noo qoreen ay dhahdeen $1 milyan baan idinsiinayna waxoogay soo qorshaystay iyo u dhiibaysan to Soomaalida looma siiyo lacagta moogtay there has to be waxoogay qof idin dhex joogo hay'ad kale ah marka waxa bal Kenyatta University anagu ma rabna enjoy yar Kenyatta University iyo University of Nairobi noogu dhiib haba oran lahayda soo kaba hunguri weyn iyaguna enjoyada soo qorsheeyaan niriyo waxay soo qorsheeyeen 6 qof bay iska soo saareen oo madax isu wada xigto waa mashruuca yar halka milyan EU-da ka helay totalkii waxa iyagu isku qoreen kharashka overhead cost-kii iyo mushaharkooda iyo wixii $620,000 meelahaas ay isku qoreen waa 1 milyan waxba xaqlihii ragga iyagii lahaana 380 meel noo soo reebay intii oo jaamacad 9 jaamacadood masaasaha waa surprise 9 waa joognaa وأنا كان وحنوكي يقولون European مثلاً بعد يليسان لما كي بالله قرقرتمينا إلى أنا جو أورقة ذي سوقره هالشيء كهس هنا سو أنا جو ملي العقد هاي ذنك عليه لا قرقرتها وديا وشغالين إنه ما كان يجي بقى نتجي أنت أنا نتجي بقى وحنو دري لما قفبان لما دي تام عدود الدري أنا برق هبل ليش كنتاسي أنت قاعد أنت المشهر سوء مشهور وحلوقي مركي الله يسكت دري اللي حدين sanadkii waxay soo qaadan jireen ilaa $140,000 meelaha ay soo qaadan jireen lixdoodii ana 600 waxay qorteen 20,000 bay qorteen iyagii baan u yeeray waxaan yeelaysaan mashruucan anaga leh deyn ma aha idinkuna waxaad tihiin contractors annaga ownerskiya shaqaalaha iyagii baa tihiin waxaanu idin siin 140 ka qaadanaysaan Kenyatta University uma shaqaynaysaan mishaarkiina ma qaadanaysaan intana full time ku shaqaynaysaa ma yadacay kama ho Nairobi saa looga shaqeeyo enjoyada Soomaaliya ka shaqeeyay saa overhead soo wararjooda anagu enjoy man ee jaamacadaana waxana anaga leh faqiir wax barayaan oo kama maaranay sidaa ku qaad hadii kale kuwa kale aan soo heli jaamacad kale aan raadsan adigu way isku noqdeen waxa xoogay noo kordhiyo gorgortankii 200,000 baan u gaarsiinay way afar baad ka duul xagga iyagii soo maray rugada markii dambaanta sanad waxa diilisaan political political organizations manhine yaynaan ururka platformka yaynaan kala furfurinba sida aynu kolba gaalkaan u tagnaan la baayactano tiibaan ku jiraa wali ilaaymo bernota Turkey baan ku xiyay 6 kamida in faaq wuxuu soo ogolaad hadda noo soo ogolaad about $5 million marka waa platform basically educational kagana bilaabmay donor related assistance related iyo arrimaha kaga bilaabmay manina anagu political organizations laakiin waxaan isu ogolahay ninba meeshu ka yimid wuxuu yahay inuu yahay loogu yeero oo aanan uqdad kala qabin sida aamin issues badan ba of course jira jaamacadaha waa la sameeyay Ahmed University ay baan ka tusi doonaa runtii waatan wana soo gaabin inta kale waxa issues ka maanta jira jaamacadaha Soomaalida guud ahaan idinku waa dareemaysaan waxa ugu horeeya waxa weeye question of ownership horta jaamacadaha yaale question of ownership wala sameeyay badankoodana ay masay waxa sameeyay dad gudaha iyo dabadaba shakhsiyaad gobollo kooxo in badan dad badan waa loo dhanaa guul wadareed way wixii la sameeyay however the way la raahdo marjiciigi waa halka ciidaa saale basically ma aha un hatta in qaabbeeleed loo sameeyay in la isku laalaayana ma aha taas waa issue weyn oo hadda jira jaamacadaha qaarkood dhulkana dawladda lahayd daaraha dawladda lahayd waxba lagu kordhiyay laakiin all of them sameyntoodii dawladda gacan kuma lahayn that must be taken serious issue ga labaad
وإيشوغان هذا رسعت كجدا واجي أو quality assurance يعني تيار جامعة ورنتي حديث كسا وين وح quality assurance هذا الشيء يسوكيبا quality assurance وحول جرى وحنا لبعض سنة كبدنين concept كاسل اللي فاهمين لكن حديث كان رسولك يكون يأفر بقول السنة أيوك جرى من عمل منكم عملا فليتقنه هاي سكرنينا ويد مركا دوين quality assurance لها يعني تيينتي جامعة تانا وحا ككوة جامعاته إن لو هلو meaningful accreditation إن لو هلو accreditation ووضع قرنسان accreditation جامعاتها وجامعات كستين الليسان ليدها وان لا يسكفرنو مثلا نورث أمريكا جامعاتها accreditation هو voluntary frankly جامعات دي ربطون باب accreditation كشيء لكن هدا يدو قلي ويدتها السنة basically transfer credit كيجي مهجاجيو degree جيسي تا employability جيسي والله شكي بقى كتير لكن دولة خاصة يسمى تشيلو عالم كان كله third world cup أفريقيا إيشيا يوروب تنبا ومانديتري جامعاتها بدن كوديني أكريديتيين أكريديتين كنا وسيمبلي جامعات داس إني أقلن توب مجا عايشة جنسو وها أي بريسين إنه يها university level tertiary level إنه يها أو تشيرو مركا أكريديتيشن كوا external هي هذا ديك أنا هاي باكو ليسن كسيني سؤال أوكي certified كريديس كقبل هذا مثلا commissions for higher education ودن كسومالي دو ملاحين هذا أوبتان حفيز يرو كون أتوني جنرال كان وزارة إسكان ريجستر جريين إذا تيجي ما إيجي with the exception إمكا 2006 أيام حوجين الشرعي سواك وحرمنا الجامعة هذه واحد سكرين جريئة أو أنا نقول ده دكان لفرتيون مركا الله فرنا يلا أوكي جامعات بعد فرة أساسا كان شروط واحد جامعة لها منهج كينو تشيلو structure كي policy كي قريهين resource كا هيساكو financial يا كي man power كي معلمين تي library يا وعيني minimum ليهين واي standard accreditation كلا جوبه يا ماليزن واي أنت كه commission كي وكجارسي واي ساقو مدحوينها هني مرو عمود نوجي مهدي تشوجي نوجي يبان هذا من أمان تاو فرديان كل حساسية إن commission كي ميسكي سيالو تضبط كي كحيجي أيو أبروف قريجي ينفع وزيرك وحبرشة كا chairman أنا كباش chairman لكن وحلينا هاي secretariat بيليه specialist والله إما كلا بس صدق جامعات بيقول حدين ولا يرينو والله ما شيء هاي إثيوبيا كي بعدين يمد جودها هاي inspection والله سمية عمود بالله قبل إلى إرجاع والله سمية every year once مركا تيجي النوع عاصر ريبولان واي قادو وانود ريجانا تد واي وضعني يجونا وواي سمانية commission كي بليها الريم مقصنينا واي سمانية مركا تيجي هورت الجامعة تاسان إسلام هي والله قلت تيجي كراتا accreditation كا أو لا كنترولو صدق لبلوي accreditation مر institution كنا لا accredit كرانيا وليس كلاسين مرة program مثلا medicine أو كلها دات فورس it must be considered separately مرة course كلي أي accreditation كلا سمين لكن هذا وحكون رتوين هاي إن على أي حال ذات كيف هذا سوء البحيو سكول ده بوادرك primary إلى secondary سكول كاسا كفي عن كاس عرورت حاجة أنجين نبدر ببلابنتي أو سكول دي أنت يفي يعني يويس بسارة دي سنة يعني يجاب السنة يلا جامعة أساسا نقول دونا إذا بتجي بيجي يعني أنت يلا هاي تاس مركز تجود إيشو accreditation وامد لبا صدق support وين أنا جامعة وين البروتكت كريا هنتيدو ده at the same time duplication كفرها بدل لكوا إسكو مجال ده تشوجه وين لقى إلى عليا جامعة دي business كل يد ولا business هو دليل إن ولا وأرد ولا business يكبر تعملها قاركود وين كل جامعة قاركود لو داين متخصص تلو مركا يدو تجود جامعة هنسا كلها فيو إن يرو example إنه مركا أو سؤالنا ويدين بنايين هؤلاء كلنا تيران عمود university هذين سوق هذا تصارها as a case study أو بلاودي وحنودن in fact مارنتي بريجا جامعة هذا رجال بيت بروفيسور أحمد وأوجي هاي وهو بدن هوش قبتان هو أكاديمية teaching research هي لا بس أوجي حق واوي إنك متكلم إن لسه درستيو دايرتن إن رجها لسه عليو نبضنا عيك قريب كلام جامعة هذه peace process maintaining peace and security هو part and parcel of our function دليل هذا الناس واحرين orientation في عنا الناسين إن أنا نبض لقوا وارين mission كيجي عمودنا واقع إن رنتي أي تاي إن أنه contribution وين كسمينه ده كانوا أشقين clients كا
si ay uga mid noqdaan global village kan maanta jira la sheegayo missionkeena in ay noqoto center of excellence and also in qoomiyadaha iyo dadyowga geeska Afrika ku wada nool meel dhalinyartoodu nabad dhaqanka nabadda ku bartaan inay noqoto go ahead please waa taa visionkeena waa mid fogo yar ka ballaaran Soomaalidaba runtii geeska Afrika inaan noqono a regional center for scholarship and culture of peace oo fidiya maalintii barigii la sameeyay Amuud indhaadayga yar qabnay waxaanu hayn 3 macallin iyo of course waxaan aad ugu mahad celinayaa let me say this inaanay dhowrkii sano horeeyay 3 sanadii horeeyay 3 sano hore Amuud inaanay mar raba suura gashan haddaan dadka dibadda joogin raawada lahaadaan Soomaalida kala ha noqdaan oo dhaqaalaha dhan siin jirto waxaan 3 sano ka bacdi way of course waa gudihii baa isku xilqaa 3 macallin 70 arday iyo 2 kulliyadood oo undergraduate afar kuno buugo qolada reer Abudabi markan mobile ay ka soo shaxaadeen oo waa kolba dekad tagayay bay soo shaxaadeen oo Djibouti markan ka soo qaadanay today Amoud University waa 15 unit oo 13 kulliyad ay yihiin 13 kulliyadood School of Postgraduate Study oo MA da bixiya hadda PhD dana ma insha Allah 2 area ku bilaabi doona iyo freshman program macallimiintu waa bahalka yar oo imika waa 222 sida la igu yiri habeen hore la hadiyay oo semesterkan cusub hogay baa ku soo kordhay nearly 4,000 arday ilaa 40 department master's degree program oo yadna 7 area lagu sameeyo degree bachelor-ka hore oo dhowr iyo 20 combination takhasus lagu bixiyo diblomayaal iyo certificate program shaqaalaha guud oo inta ay by the way 4,000 arday meesha jooga ma wada ahree oo dariifaag bari dhexda ka horaan weydiiyay 2012 gaadhay ardada bal soo qoray jaamacadda meelaha ka mid 32 meelood oo awdal midun ka tahay bay ka yimaadeen runtii oo geeska Afrika oo dhan dadkii goboladii Soomaalida hor isteed toban mid walba ka yimaadeen qurba jooga qaar baa soo noqday fara badan ardaydii soo celiyay waxaan war jaamacad hadii ay gobolka u yeelato gobolka waa munashiibiye yar ballaartay una jaamacad ma hadii la yiraahdo awdal bay ku koobanta munashiibiye noqonaysa jaamacad waa tii cid alla cidii ku wixii shuruuduhu yahay buuxisa waa in shaqaal iyo islaam waa in kala runtii marka infrastructure-ka jaamacaddu xogay dhowr campus baan leenahay oo ka Amuudade weyn iyo ka caafimaadka kulliyadda shariicadana waa meel gooni ah shariicada qaanuun iyo freshman campuska waa jaamacadda qure runtii jaamacadaha kale waxa dhici karta inay culayskaas haysan dhowr kun arday aroorba Amuud qaade soo celisa oo basas baan iibsanay laakiin marka dadka rabnaa inay nala wadaagaan oo private transportation giba tiri wadaba bari wuxuu yiri intuu saa magaaladu eega wadi boorebe laba arrimood baa waqtiga ku socda eedaanka masaajidka iyo basaska Amuud labadaas baa ku socdo waqtiga loo oo waxa la yiraahdaa ardayda ha eeganina la yiraahdaa inta buuxday saacadu neegta haduu faarig yahay dhaqaaqa because ilaa 6-7 shift bay maalintii galayaan meelo badan ba iska jira laboratory-yaashu waa jiraan oo ma faanayna laakiin intaas oo bilow un hadana saan idin sheegay waydiin tirinayaa uune tayadoodu waa wada soo korayo wali aqoonsan haysan u baan nahay oo wax badan ka baxlo laakiin in noo shaqeysa waa ku jira go ahead please an yarda dejinayna barnaamijka postgraduate-ku waa indhaadaygi hore soo noqday laakiin hadda waan calool adagnahay waan ka yar calool adagnahay intii hore waxaan heshiis la galay macallimiinta hadda wax dhigtay waxa u badan yihiin Makerere University oo PhD oo areaska public health project planning education planning and policy family medicine oo gebigoodu ba yihiin dhakhaatiirta dhigtay waa Mareykan Allah qoladan ilaa mahad aliye ilaahay uu gargaaray iyagana ardaydana hawlaha aanu qabanay waa basically student affairs iyo sports iyo suugaanti iyo inay leeyihiin extra curricular activities fara badan oo halka ku taxan quality assurance ka sheegaya waa tii Allah wartayadii waa in la hubiyaa runtii tiradii waa haynaa laakiin tayadii marka hore application ka horeba processing in tayada lagu hubiyo imtixaanada in tayada iyada basically imtixaan tayada oo reflect garanaya in wixii ardaygu bartay soo saaro in external examiners loo yeero kulliyada caafimaadka saad ogtiin ba Amuud anagu imtixaanka ma qaadno dhakhtarka kama qaadna imtixaanka finalka
University of London man xiriir la leeyahay King's College iyaga soo dira dhakhaatiirta ka qaata way ridaan sanadkan maalan 16 dhakhtar baan u malanayaa baa candidates ahaa 18 baa candidates ahaa 12 baa baaskareeyay laba year istigay 60 ka dhigay 60% laba midna 56 ha midna 54 أنا فرنسي قلت تقول لبعض ما 50 waa dhaafeen ka you reconsider them maybe dhahdeen waa yaa istigi London loo qabo numa noqon ka dhigayna marka waa basically quality assurance kamid yahay nurseska waa saas oo leeg qoliyaha ilkaha saas oo leeg saddex kuliyadood oo kale oo aan wali qalin jabin oo caafimaadkaana waxaan gaabs baan leenahay moogtay gaabskii waxaan ku dabooleynaa shisheeyaha anu yeedhana leenahay culays saar ardayda idinku imtixaan ka qaada si annagana pressure noo saarmo dee aan iibgeynana dhakhaatiirta London baa imtixaan ka qaaday ilaa anagu isku filaanayno go ahead fine culture-ka iyo waxyaabahana wax badan baan runtii aan isleenahay ka qabta primary iyo tacliintaba secondaryyaasha primary-ga meelaha ku naaliya wasaaradda waxbarashada iyo Soomaalida kaleba intii aan ka gaari karno runtii Sohil go ahead inta la soo saaray iyo postgraduate-ka employment-kii magaaladana wax badan baan ka qabanayo dadkan dhalinyartan hadda aanu leenahay gobolada Soomaalida oo dhan bay ka yimaadeen magaaladii Boran waxay u rogeen university town nin hadda aan saaxiib lahay oo ugu leh ninka ugu weyn stationary-ga magaalada waa garanaysaa Maxamed Hadan Macaad ayaa bari dhexdaa wuxuu yiri barigi hore waxay Boran yar bishaaraysan jirtay marka xagaagii reer Jabuuti ay noqdaan meesha waa meel lagu soo xagaa baxo oo yaa xoogay la dareemi jiray because nearly 30% waxa la guriyaha waxa la ahaan jiray reer Jabuuti imika waxaan yar dareenaa bishaaradii marka jaamacaddu xidhantay fasax la tago ilaa boqol kumanaan ardayda ayaa ka yimid ilaa 1400 baa gobolada kala ah dadka kala ah marka guri la karaysto hodeel wax laga cuno stationary wax laga iibsado waa dad dakhli wada wata marka magaaladii waa ka dhigan Madiina Jaamiciya marka waa hawlaha iska waxa kale oo caafimaadka waxba aanu ka qabanay iyadana oo Boorama hadda aragto oo lagu soo socdo laba arrimood baa loogu yimaadaa waa caafimaad iyo waxbarasho dhaqaale looguma yimaado ganacsiga reer Boorama qaar baa wajaale u guuray imka laakiin hadda aragto iyadoo loo soo socdo waa waxbarasho iyo caafimaad labadaas oo aan yareyn business-ka iyaga laftooda research-kana waa muhiim imka laba research waaweyn baa ka socda saddex in fact oo mid imka mesela taariibka Amud University baan annaga proposal soo gudbinay qolyo shisheeye annaga yar dul gelin gaadhayo IOM to kamid tahay oo markaan taariibkan wada xagga ku sameeynaa bal exactly asbaabaha keenay meelaha ka yimaad dadka psychology waxay dhalinyarta tagaysa dhibaatooyinka la kulmaan iyo wixii recommendations la bixinayo marka qolo IOM baan barido tii lacagta oo dhan baan bixinayna aan idin la sameeyno ka waa sameeynaa mashruuca ugu weynisa waa ka adii sheegay waa ka I think we applied research Ethiopia Somalia waxay ka soo iibsataa sanadkii taqriiban 27 milyan oo khudrada intii baan tijaabo ku sameynaa oo Mareykanka USAID baan taageerto lacagta bixisa research-ka waa kulliyadda beeraha Camudeed oo Baki iyo Ruqi iyo Camud baa lagu sameeyaa research-ka intiiba waa halkaas sawirkaad ku arki doontaan baan ku sameynaa 6 xilli baan beeraynaa ka ugu dambeeya ku guuleysta ayaanu multiply gareynaa bahaladii abuurkii ama seedskii beeraleyda dalka oo dhan loo qaybin doona insha Allah waa mashruuc baa socday migration-kana waan ku sameynaa hay'adahan xidhiidh la lahayna waa kuwa runtii waa farbadan yihiin okay this is very important Amud University ka hore waxaan gabagabeynay strategic planning-kayagii oo 5 sano runtii ilaa 18 intaasoo area inaan u sameynay plan intaba 5 sano soo socota qorshihiisa sanad walba qayb ka furin doono ugu horeyso tayada teaching iyo learning si loo furin la campusyada si loo hagaajin la research development ICT loo kor loo qaado facilities-ka iyo dhismayaasha iyo inaan kor u qaadno iyo governance and management structure-kii jaamacadda iyo maamulkiisa in dib loo eego runtii ardayda welfare-kooga in training human resource development quality assurance ka sheegayo jaamacadda image-keega inaan kor u qaadno kor loo qaado in communities-ka inaan wax la qabano waxna la qabsano dadweynaha meesha leh iyo resource-kii jaamacadda in kor loo qaado okay challenge-ku ogow intaan idin sheegay wada laami uun ma aha dhibteedii weelada intani waa intaan iibgeyno laakiin haddana challenge bay iska jira dhibaatooyin waa jiraan infrastructure-ku secondary school bay meesha aan jirtay facilities secondary school kan shaqo jaamacadeed ku qabanaa kolba in yar baa kordhi doonta laakiin waa mid aad iyo enrollment-kii oo soo badanaya qualified manpower dadkii wax yaqaana waa yar yihiin
dadkii jaamacadda waa in professorku waa garanaya ratio-ga jaamacadda PhD iyo MA iyo ratio-ga inta laga rabo waa percentage sare intii MA iyo PhD haystay jaamacadii baa kala boobay hadda waxa nagu kalifay jaamacadda barnaamijka MA iyo PhD-ga inaan sameeyno in aan dadkii wax bari lahaa jaamacadda anagu soo saaraan rabnaa kolba laba qof oo dibadda u dirana ma anfacayaan it will take us 100 years inaanu ku filaano hadda MA-da waxa ku jira 86 baa ku jira 46 baa macallimiinta jaamacadda ah PhD-da waxaan rabnaa inaan ku bilowno 14 qof already ilaa 8 baa jaamacadda macallimiinta noqon doona marka inaan runtii soo challenge ka mid tahay taalafteeda go ahead please waay xoga yaro iska sawirra ardayda oo qalin jabinaysa aniga iyo xaajiga iyo marka ardayda siisiyeen shahaadaha go ahead library oo qayb ahaan marka laga rabo runtii iska deegaanka guud ee meesha ardaydii oo orientation iyo waxyaabahaas freshman-kii oo imtixaano iyo waxa qaadanaya iyaguna gaadiidkii jaamacadda iyo hawlaheegii oo iska shughul military baad moodaa waa tii aan islaa waxa ku samaynaysaa it's very interesting bahasha marka la beerayo xilligii markay go'aanba waxa la isugu yeedhaa kuwii beeray dumarkii guryaha wax ku karsan jiray magaalada kuwa suuq ee wadatada wax iibiya intii baa loo yeedhaa iyagoo la dhaho ka warraba kuwa waxaan moodayaa inuu ka ugu waaweyn tamaandho kala kaasa la yiri kaasa ugu fiicnaa dumarkii wax karinaya waxay yiraahdeen maya ka ugu yar baanu qaadanaynaayo waasanaadeen maxaa u qaadanaysaa waxay yiraahdeen waa practical annagu ma lihin talaagado taa weyn haddaan dee mar kula goyno way naga xumaanaysaa taa noo kala hadlaysaa yareen kol baxbada ma laba ku ridayno kuwaasaan rabnaa which is right warigan ma fahmeenta go ahead wareey beeraha iyo weeyi oo research iyo iyaga macallimiintooda oo field work ku wada jira oo hawlaha waa kulliyadaha ugu fadalaad bay hadda kamid tahay fiican tahay kaasana waa weather station ma leenahay weather forecast-ka iyo inta amuud baa lagu sameeyaa imika boorabana waaxideeda iyo inta agagaarka iyaga dhismayaal fiican bay noo sameeyeen European Unionku waa computers turku hadda na siiyay turkiga noo keenay iyo sample yar oo kooban oo soo ordayo sawirada ku degdegay shaybaarka markaan soo ordayay go ahead iska waa ardaydii chemistry-ga kulliyadii caafimaadka xaruntooda isbitaalkii alxayaat oo runtii ah teaching hospitalka officialka ee jaamacadda Amoud Foundation by the way waa hablihii nursing-ka ahaa imtixaankii u dambeeyay galayay stationskaas hortaagayeen qof French meesha ugu jira marka qole ka soo baxay 15 station buu marayaan qoladii ilkaha dalku wada ilka beele qoladii horeysay baa ka baxday hadda shaqana way wada heleen cid shaqo weydayba meesha kuma jirto qaad waa hablihii nurse-ka iyagana models-kii wax ku baranaya isbitaalkii oo round-ka ay marayaan macallimiintoodii oo la socota Soomaali iyo dhakhaatiirta Mareykanka iyagoo dhakhaatiirta ugu badan shaqeeyay la joogta caafimaadka waa Mareykan qalliinkii oo Kijaab Hospital nooga yimaadaan raga qalaya iyo ardadayadii kay waad maasantiin hadii waxa ku aasay kale hada So هذا وكذا نتكلم ملأنا هذا الكلام بهندين. I will try to be as quick as possible and Somalia في إنجليز نو أسكت دردرها يجينا على نقطة وحكمل هاي the product of the past 23 years of هايو Somalia عمل إسبرنا ميلها لقى قد جعتنا so I represent that the lost generation of Somalis so I apologize to Somalia محلها وقضي هاي انت هذا كروح اسكديا ان ان كستغريا في Soomaaliga سكونا وانا هاي so I apologize عمود saddex waxyaalood aan rabaa maanta inaan kala hadlo and I will be as brief as possible tripkayga Soomaaliya rabaa waxaan inaan idinkaga sheego iyo waxyaalo qabadka ee Amoud Foundation waxyaalaha qabanayso aan soo arkay waxaan kaloo rabaa wax yar inaan idinkaga taabto waxaan displacement la dhaho and then topic ugu dambeeya ku soo xiraayo waxa waaye disability in Somalia which is a topic that is very dear to my heart because of Amoud Foundation tripkayga Soomaaliya maxay u qasbinaa Soomaaliya aado anigoo 6 sano jiraan Soomaaliya ka soo tagay I was pretty young Soomaaliya waxyaalaha aan ka xasuustayna wuxuu ahaa dil dhac iyo kufsi that's it iyo 1991 dagaalkii hore gadaal aan u soconay from Mogadishu to Kismaayo to the refugee camps of Kenya to maxaa dhahayo ilaa iyo Nairobi
waxay u qasbay inaan Soomaaliya aaday in 2011 ayaa waxaan internship u sameeyay Kenya anigoo iska masaxay Soomaalinimadeydii sababta ay tahay Soomaaliya waxyaalaha kale ee xasuusinaysa wuxuu ahaa pain. That's it. Marka I wanted to create another identity, which is Kenyan identity. So sidaas ayaan ugu noqday markaan undergraduate University of Minnesota ka dhameeyay Kenyan ku noqday instead of going back and doing internship in Somalia. I'm assuming a lot of you can relate to that, especially the younger folks here. Markaan Kenya ku noqday waxaan aaday the Eastern Province and the Western Province of Kenya. waxaan la soo shaqeeyay dad maxaa lahayo agriculturist mise beeraleyda waxaan naga Soomaaliya u naqaano waxaan soo arkay dumar aad u dhibaataysan. My last week of the internship I broke down. waxaan u ooyay waxay ahayd Soomaaliya maxaa la Kenya oo dagaal ka dhicin oo qax ka dhicin hadday beeraleydayda saan u dhibaataysan tahay. What do you think about Somalia? taas ayaa training point kayga mise waxyaalihii aan isku bedelay ahayd marka inta ku soo noqday waxaan go'aan ku gaaray master's degree inaan sameeyo oo ah international development mise horumarinta caalamiga saan one day aan Soomaaliya ugu noqdo. Amoud Foundation ayaa waxay ii sahashay inay khibrad isiiso albaab badan aan qaraacay 2012 internship maysiin kartiin no liability we can't take you. anigana inaan Kenya ku noqdo maan rabin. I was so determined inaan Soomaaliya ku noqdo. waxaan rabaa aad inaan ugu mahadceliyo Amoud Foundation for giving me that opportunity to go back and to give back to the people that I ignored for 23 years at that point. markaan Soomaaliya sababtaas ay u kaliftay inaan tago. markaan tagay maxaan expect gareenahay maxaan la kulmay. waxaan actually expect gareenahay waxaan TV-ga ka arko oo ah dhibaato maamo maxaa lahayo the pregnant woman with poverty. markaan xamar Muqdisho ka degtay aad ayaan ula yaabay. waxaan kaloo aad ula yaabay wiilka ii soo dhaweeyay waxaa la dhahaa Cabdi Xakiin wuxuu u fadhiyaa Amoud Foundation meesha. waxaan ku dhahay Cabdi Xakiin weligaa Soomaaliya maada ka bixin miya wuxuu ugu dhahay maya inaan trip yar aadamo ugu yaaminaa weligay Soomaaliya kama bixin. markaas taa waxaan food distribution uu sameeyaa say food distribution ka uu sameynaysaa meeshaan nabadda aanan ka jirin wuxuu igu dhahay don't worry just observe me for the next 3 days. markaan observe garay waxaan la yaabay the creative mind of people who either volunteer for Amoud oo u shaqeynayaan. The big organization ka aragtiin waa bureaucracy waa inaad meel waa checkpoint inaad martid. marka hadal aan idinku badan one of the things aan la yaabay waxay ahayd baqaar ayaa intuu alaabta dhigay IDP camps-ki ay intuu tagay oo wuxuu siiyay kaarar because hadduu meesha tago asagaa lagu dilayaa and then people will come baqaar u maleynaya meesha kaarkuu siinaya ka dambe maamadii cuntadeeda ay qaadanaysaa. taas maxay sahashay maamada safety-geeda because meesha haddii cuntada lagu siiyo maamadii waa la dili lahaa asagii safety-giisa iyo cunto inay hesho caruurteeda u geyso. marka waxaan u gudbayaa displacement. haddaa ogtihiinba 1.5 million Somalis are currently displaced within Somalia. taas waxay marka kaliftay dad badan inay soo barakaceen ee guryana haysanin ee buushash ay ku jiraan. lacagtan maanta dhiibteen waxaa laga yaabaa inay staalka u socotaa laakiin aynoo dad badan oo lacag hore u dhiibay. waxaad ogaatiin shilin walba oo Amoud Foundation aad siisiin oo aniga indhahayga aan kusoo arkay it doesn't go much of administration because most of organizationada badankooda 15 to 10% waxay aadaa logistics iyo dadkii waxa ku raangareen lahaa. Amoud badanaa volunteers u shaqeeyo. magaalada Boorame markaan tagay waxaan la soo kulmay gabar kale oo like a massive woman oo istaagay oo dhaxeen idinka lacagta una siiya annaga cuntadii aan karinaynaa kadibna waan distribute gareynaynaa. marka wadanka 1.5 million uu displace garaysan yahay maxaad u malaysiin dadka curyaamiinta ah meeshay taagan yihiin. dad researcherka dadka baar waxay aad iskugu xiraan poverty and disability correlation badanaa ka dhexeeya. qofka hadduu maxaa la dhahayo disability uu leeyahay mise uu curyaan yahay indhaha la aada
galaa badanaa the bottom of the society 12 to 15% of dadka Soomaaliya ku nool live in some sort of disability. Again, that stats is very loosely saying because statistic badan lama gurin 23 sano la soo dhaafay. Marka dadkaas yaa u maqan boqolkiiba 70 ilmaha Soomaaliyeed ma aadaan waxbarashada u naqaan maadiyan because of burburkii lagu dhacay iskuulaadka. Marka cunugii maxaa la dhahaa indhoolaha ahaa cunugii aanan maskaxdiisa caqligiisa hoos u korsaneyn cidna uma maqna oo idinka aanan ahayn mise annaga aanan ahayn. Markaan soo noqday arrintan disability-ga I took it very hardkayga ayay gashay. Marka one of these days my dream is inaan Amoud University aan ku arko someone oo maxaa la dhahaa indhoole ah oo Amoud University dhiganayo. Ma ogi inuu jiro hadda maxaa la dhahaa oo professorkan loo sheegi doono laakiin iyo qof dhagoole ah oo university-ga dhiganayo. We must look sustainable development. Cunugii cunto haddaad siisay waxbarashada ogaada waa investment waa sustainable. Professorka wuxuu noo sheegay saddexdii sano ugu horeysay staff xayaad unbay Amoud waxna siisuu dhahay. After that waa la sustain garay qofka haddaa wax bartid qofka curyaanka haddaa wax bartid just because disability uu leeyahay doesn't mean maxaa la dhahayo inuusan naf lahayn nafta adiga kugu jirtuu leeyahay wuxuu leeyahay the desires that we all have. Marka waxaan rabaa inaan inta uga tago fadlan fiiriya arrintaanayta disability-ga most of the organizations ignore these people and it's 12 to 15% of our population. It's estimated it's for 12 to 15%. Marka intaas ay idinka u dhameena aad u mahadsantihiin. And then for young folks, go back, really go back. If you're struggling with identity, you need to go